ma jirin runtii maalin horta iyaga naxdinta badnayd way isoo martaa markaas haddana weli uma sheegin laakiin waxaan ku iri antay waa maalintii iyagu ka dambeysay haddii ay waxay gaaraan ama aan dhinto waxaad igu xasuusan doontaa waa calanka Soomaaliya meesha ku dhaji markaan soo tagay agaasimaha idaacadda noo yimid wuxuu igu yiri xuriica waa daahday maan ku qaado waa soo tagay agaasimihi waa soo qaaday meel dhexe oo laamiga markaan marayo ayaa waxaan ku iri agaasimaha idhig halkaan inta waan lugeynaya way magaalada dagaal baa ka dhacay way yara xirxirnayd amaanku magaalada marka loo fiiriyo wad meeshan anigu marayay iyo isaga uma haboonay inuu meesha isii dhaafiyo habeen iyadoo shaqadeeda cadda ka baxday ayaa laba dhalinyaro ah oo de kuwan la khalday ah ee laga faa'iideystay oo aan laftigooda haddii hadda la wareysto haddii caawa inta la helo la weydiin lahaa maxaad ku disheen aan garanayn ay 5 xabo ku dhufteen qofkii kale hore ii soo dhaafayna masaajidka dadka taagnaa wax bad ku fura sidadku kala cararaan qofkii markuu waan kala wareegay telefoonka lugku ku dhacay gacanta way jabtay markaan sidii wadaxan isirday meel kaaga dhow ma jirtay inaad ku noqoto laamigii aka timid laamiga ku yara noqo waan soo yara noqday labadii qofba xabadii way ku soo fureen xabad kasta ay jirkayga ku dhacdo horteeda bay ku dhacaysay waan arkay ma jirto cid kuwa macaan bidaysa ee ah inaad samaysid wadanku ma lahan meel laama amaan ee ku dhow ee degdeg kaga jawaabi kara waxa dhacaya waxyaabaha kale naxdinta leh waxa weeye gabar yara ayaa 2 nin xabad ku dhufteen markay caradhay meel ciyaar lagu daawanayo ahayd meherad ahayd ayay damcad inay gasho kaga baxsato albaabka laga soo xigtay xabadina ku socotaa nimanku waxaysanayaan ka bacdi waan soo baxay xabad ayaa waxa iiga dhacday wadnaha korkiisa gacantu way jaban tahay waxaan isiri caloosha ku soo dhacaysa hada orodid because waan orday aad baan orday 5 xabad labada nin way ciirsanayaan waxaan isiri marka inta caloosha hadaad orodid calooshu dhacdo caloosha ma ordi kartid sida naftu ku sheegayso ayaan gacantii baan qaatay oo caloosha baan sida ugu qabtay gacantu way jaban tahay tii kale iyo caloosha baan sida ugu qabtay hooyaday mar walba iyadu waa uu ku taagnaa walwalku ah xuriyo ama wax soo gaara waa dareemi karaysaa qof waarida ee lagu yiri cunugaaga waa la dilay haddana dhibka hore xanuunkeeda u dareemaya ee ah in lagu yiraahdo xaba hooyaday mar walba ay dhahayso waxa weeyaan dadku xuriyo markuu dhibka gaaro laakiin uu himbagay waayo mar walba ayaa iyadoo la raadinayo guriga la igu imaan leeyahay xuriyo goorbe imaanaysa guriga magaalada waxa ka jira amaan darri aad u baahsan ee ah dilalka in la isdilo ma kama jirin waxa aysan awoodi kareynin xataa dhalinyaradu wali markii qof la dilo inaad toos u tiraado qof hebel baa la dilay waayo waxa ugu badan ee laga baqanayo waxay ahayd qofka kula fadhiya miyaa la idin soo diray xataa idinka biibatada idin la fadhiya gaalkacyo waqtiga dhaawacu u gaaray ilaa abtina saacadan oo aan Finland joogo waxaan noloshayda ugu badan ka warqabay ee xaalkayga ka warqabaa ugu qabiil ma gaalkacyo 2 dagaal baa ugu dambeeyay oo 2 sano ugu dambeysay ka dhacay dagaalada kamid ah wuxuu ka bilowday oo lagu dagaalamay wado ilaa 500 mitir dhan laami hal la saaro iyo la saarin ma waa la saaraya iyo lama saaraya konton wiil baa ku dhimatay wadadana laami lama saarin wali waxa ku go'an ciidii la dhigay maalinka dagaal lamana dhisin wadadii konton wiil waa dhimatay hawshana waxa la yiri bis halka kala joogo
gaalkacayo oo wiilka degani garsoor iyo wiilka degani maxaa la yiraahdaayay israac ay ku hoydaan xaafadda magaalada ugu dambaysa koonfurta gaalkacayo ay jiiftaan guri ka ijaartaan ka shaqaysan karayaan wax ku baran karayaan waxaan rabaa halkan inaan kaga faa'iidaysto 5 sano ka hor dib baa i gaaray waxay i geystay dad Soomaaliyeed anoo dadkayga iyo dadkayga Soomaaliyeed u shaqaynaya hadday nool yihiin iyo hadday dhinteenba ilaahay hortiis cafis bay iga yihiin maanta waxaan ku qiirooday marka barnaamijka aad ka duubtay ay tiri waan cafiyo dadka ninka intuu qabtay damcay inuu madaxa kaga dhufto xabad wuxuu ku dilayna aysan jirin oo 5 xabba ku dhuftay iyadoo gabar yar ah oo anigiga ay jeedid baa qaaday markii ay si u yareed macnaha markii dhaawac ahayd oo ilmo yar qof yar bay ahayd ayaa iyadoo haddana wali yar oo gabar yar ah waxay garatay inay tahay waan cafiyo dadka dibka ay gaarsiiyeen sababtan u cafiyo marka waxa weeyaan qof walba wuxuu isweydiinaya xuriyo maxay u cafis anigu ma garanayo caawa meelay ku nool yihiin inay dhinteen inay nool yihiin welina inta ay hor yimaadeen igama dalban cafis sababtan u cafiyo waxa weeyaan ana u arkay inaan caafimaad tahay inaan ku caafimaad inaan cafiyo cid dambiga gasho waayo inaan caloosha ugu haye ee iraahdo way idileen aanan garanaynin aanan maxaa la yiraahdaa maxkamad la soo istaagi kareynin iyaga i hor imaanin waxay fududeynaysaa inaan qalbigayga nadiifiyo qalbigayga ka saaro ee aan dhaho cafi baa iga tihiin